dunida waxaan cod dheer ugu sheegayaa inaan dalkan dimuqraadiyaddiisu hana qaaday aan indhaha laga qarsan karin oo ay mudan tahay ictiraaf aan cidina marti looga ahayn waxaa iga go'an inaan dardargeliyo soo kabashada iyo kobcinta dhaqaalaheenna si kor loogu qaado nolosha muwaadinka loona yareeyo xadka saboolnimada xukuumadda cusubi waxay si xooggan ula dagaalamaysaa musuqmaasuqa iyo xatooyada xoolaha dadweynaha oo aan dulqaad loo yeelan doonin zero tolerance waxaanu xoojin doonaa suuqa xorta ah waxaanu abuuri doonaa siyaasado iyo jawi maamul oo dhiirigelinaya hal abuurkiina iyo curinta ganacsiga soona jiidan kara maalgashiyo dibadeed waxaan ugu baaqayaa in cid kasta oo Soomaaliland maalgashanaysa ay xukuumadda cusub soo dhaweynayso meel kasta ay dunida ka joogaan waxaan hindisi doonaa isla markaana dhiirigelin doonaa mashaariic kordhinaya shaqo abuurka dhalinyarada si taas loo helo waxaanu bangiyada wadaniga ah la kaashan doonaa fududaynta deymaha iyo maalgelinta ganacsiyada yaryar maanta waxaynu nahay dal wax kasta dibadda kala soo dega waxaan hiigsigaygu yahay inaynu wax soo saarkeena kordhino maadaama dalkeenu yahay dal hodan ah si aynu suuqyada dunida ugu iibgeyno khayraadkeena kala duwan ee dabiiciga ah walaalayaal waxaanu ka shaqayn doonaa tayeynta waxbarashada adeega daryeelka caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka tayada dawada iyo cuntada dalka la keenayo oo maanta dhibaato badan ay ka haysato ummadda ilaalinta iyo fayadhowrka deegaanka iyo in muwaadinku helo biyo nadiif ah